الله وبركاته. ساكا موضوع عن دوني أنا كهذا حويا أرين دالك مانتا سوين كنت الله قبض هذا الهيو أرين تاسوه وادوكتي هنا دالك مانتا وحكا جرتا أبارب عن إلهينا كوض صاره waxaynu oran karnaa abaaraha haddii lagu talagalo ilaahay roobkuna nimcooyin buu inoo shubaa waynu barinaa wayna siiyaa ilaahay beediisa lagama caajiso hase waxaan leeyahay shacabka Somaliland iyo dawladda iyo xisbiyada mucaaradkaaba waxa jira arrin laga gaabiyay waxa weeyaan doox baynu leenahay inagu biyaalmanihin oo biyaalkana maraan laakiin dooxyadu leenahay dooxaas waxa uu leeyahay faa'iido badan oo laga faa'iideysanayo because biyaha socda sanad walba iyo markasta meel roob u doo biyahaasuna waa biyaha loo baahan yahay in laga faa'iideysto biyuhuna wada ogtihiin oo waa important waa dalka oo dhan oo waxa qurxiya wax walba ku socdaan wax walba ku dhaqaaqayaan marka dawladda waxaan leeyahay inkastoo mawduuca la soo hadal qaaday oo leeyahay waxba laga qabanayaa dalka biyo xidheen aan loo sameeyo waliba biyaha doox laga faa'iideysto ee badda sanad walba iska galaya qodobkaas oo qodobka labaad waxaan leeyahay kooxaha xisbiyada mucaaradka adduunka waxba qabtaa hadalun ma hoos kama hadlo oo ma yiraahdo waxbaan cambaareenayo xisbigu saas u yeelay qaranku mucaaradku waxba qabtaa xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay deedig laftigiina weydii taallaa inaad dalka waxba qabataan oo aad waliba aan hawsha aynu sheegayna wax ka qabataan because markaan ugu doorana qodobkaasuna waa qodob bulshadana waxaan leeyahay ha sameeyeen hana ka faa'iideysteen oo ha sameeyeen ururo oo ha sameeyeen shaqo abuur ويانا شغلت الليرة أبو رصة ما هذا الكين لقى عرب حويا دلك كين لو سوتشيستو شقوي بدن بياله oo arrimahaas ka mid yihiin ururada la sameyn kara arrimo badan baa sameyn in urur baan ku mashquulsanahay oo nimka wadnaa laba urur baan wadnaa insha Allah Ilaahay nagu guuleeyo gadaal baan idin soo sheegi doonaa arintana dawladda waxaan ku soo jeedinayaa dawladdu dadku waxbay qabsanayaan hadii dawladdu dhiirigeliso marka dawladda waxaan leeyahay ha dhiirigeliso bulshada tusaale ahaan wadada ceergaabo sida umada lagu dhiirigeliyay waa taa la sameeyay waa taa lagu guuleystay alxamdulillah rabbil caalamiin tan aanu sheegnana sida ka dalik bulshada weyn wax loo sheegaa because waayo idinka la doorto madaxdii wadanka iyo dalkaba marka dadka waxa loo sheego hal barnaamijyo la yiraahdo maantana halkaas marasa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh موضوع يا جماعة بتحسن كسوق بقولنا يا ودمانتي وانت سلامتين